shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku soo bandhigtay barnaamij ay ugu magac dartay abaalmariye kaasoo macaamiil kasta uu ku shuban doono $1 iyadoona maalintii ay ku guuleysan doonaan 4 qof oo macaamiil ah qofkiina uu qaadan doono 1,100,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxa uuna barnaamijkan uu socon doonaa muddo bil ah ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Burhaan Maxamed Cismaan oo ah madaxa marketinga shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa sharaxaya qofka sida uu guuleysanayo barnaamijkaasi waxa la yiraahdaa abaalmariye wuxuu socon doonaa muddo 30 maalmood ah oo aan ugu talagalnay bisha December in uu socdo waxa lagu heli doonaa oo barnaamijkaas uu ximbaarsan yahay uu wata qofkii $1 ku shubta 24 saac $1 qofkii ku shubta in uu ku guuleysan karo 1,100,000 oo shilin Soomaali ah $1 qofkii 24 ku shubta in uu ku guuleysan karo 1,100,000 oo shilin Soomaali ah si equal opportunity ah oo fursad siman ah maanta qofka haduu ku guuleysan waayo bari ku guuleysan karo bari haduu ku guuleysan waayo sadam ku guuleysan karo Xaaji Cabdiqaadir Cumar Ibraahim oo ku hadlayay codka maamulayaasha xarumaha Muqdisho ayaa halkaasi ka hadlay waxaan idin leeyahay customerka sharafta leh qaaliga lahow waxa ka faa'iideysanaysiin barnaamijkan ah ee ku shuba abaalmarinta ah 4 qofood ayaa maalinba ka faa'iideysanayso ugu dambeyn waxa barnaamijka soo afjaray oo kelmadaha halkaasi ka jeediyay Suhayb Cabdiqaadir Abuukar oo ku hadlay madaxa xarunta Xamarweyne iyo Axmed Cali Axmed oo ku hadlay madaxa gobolada Somtel maanta runaantii farxadeena ma koobi karno farxad aad u balaaran ayaan laabteena ku haynaa wana mahad Ilaahay markaasi aad iyo barnaamijkan oo markaas aad u soo dhaweynayno barnaamijkan waxa dhamaan ka wada faa'iideysan karo gobolka Mudug Galgaduud Hiiraan Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe Banaadir Shabeellada Hoose iyo labada jibbo waxaan jeclahay insha Allah barnaamijkan inuu noqon doono barnaamij faa'iido leh ayaan Cabdulla Guure Honkebel TV Muqdisho